xog hoose ayaa ka soo baxaysa kulan 4 saacadood xarunta Villa Soomaaliya ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe. kulanka waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka si gaar ah Hirshabelle oo dhamaadka bisha soo socotay Agoosto ilaa tan ku xigta ee September deegaanadeeda ay ka dhacayaan doorashooyinka hogaanka maamulka Hirshabelle ee tangolayaasha deegaanka. waxaa la sheegay in hogaamiyaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe madaxweynaha Soomaaliya uu ka dalbaday inuu noqdo musharaxa GSB ku matalaya doorashooyinka Hirshabelle. hase yeeshee waxaa la tilmaamay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa ay haatan si cad ama ballanqaad toos ah uusan u siinin Cali Guudlaawe inuu noqon doono musharaxa GSB ku matalaya doorashooyinka maamulka Hirshabelle. waxaa la tilmaamay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hogaamiyaha maamulka Hirshabelle ballanqaad toos ah uusan siinin sidoo kalena uusan garantiyo u siinin inuu noqon doono shakhsiga GSB ku matalaya doorashada hogaamiyaha Hirshabelle. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga ee dhawaan la dooranayo. wararku waxay intaas ay ku darayaan in kulanka oo arrimaha doorashooyinka inta badan looga hadlay labada mas'uul la sheegay in mar kale ay ku ballameen inay isugu yimaadaan oo ay ka wada hadlaan. hase yeeshee ma jirto ballanqaad toos ah oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyay Cali Guudlaawe taas oo ka dhigaysa inuu noqonayo musharaxa GSB ku matalaya doorashada soo socota. Hirshabelle ayaa doorashooyin adag galaysa waxaana jira ilaa haatan liis musharaxiin badan oo maamulkaas u tartamaya. marka laga yimaado tan galmudug doorashadeeda oo dhawaan dhacaysa Hirshabelle ayaa loo gudbayaa mana jirto ilaa haatan shakhsi ballanqaad ka haysta GSB iyo waliba dowladda Soomaaliya kaas oo noqonaya hogaamiyaha maamulka Hirshabelle. wixii warar ah ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu eebeedmo.